بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملكستو جوجتان وحان نقول سلام يا سلامة إسلام مدى، وحان نرجين يا إن شاء الله تعالى نرول ونكسن يا خير بدن إن شاء الله. waxaan ku jirnay bahayd oo ka soo hadlaynay suurada weyn ee suuratul qasas iyo quraanka kariimku sidoo uga waramay qofka dictatorka ah dhaqankiisa. walaalayaal waxaan jecelahay inaan maanta sii wadno oo ka hadalno gabagabadii baan joognaa sida marka uu hadeeto uu isdhaahdo oo lagu soo kacay wixii uu yeelay baan sheegnay. kadibna waxaan sheegnay oo nii ballan qaaday inaan ka hadalno sida inaan yeelo ay tahay marka uu soo xamaan qaato qofka dictatorkii dadka bini aadankiisa inay yeelaan sida quraanku u soo bandhigayo. waxaan jeclahay walaalayaal inaan ka waramo laba nin oo aad u culculus oo taariikhda soo maray. nin Faransiis oo Le Poisier la dhahdo, Le Poisier oo in badan ka qoray dictatorka sifaadkiisa, iyo nin muslim oo carab oo masri ah oo la dhahdo Abdurrahman al-Kawakibi. labadan nin waxay tilmaameen qofka dictatorkii qof bini aadan maaha, qof qura maaha, waa system weeyaan, waa hab weeyaan, waa nidaam. nidaamkan dictatorku uu dhisay sal wuxuu uga dhigay saan soo sheegnay saddexdii arkaani waaweyneed oo ahayd فرعون واستعمالي هامان يقامان هامان نكي قارون نكا صدحاضها أقوياها كي أما صاحرينتي ضدك سحري صدح ذا قولو يا سميسا سيستيمكا نكا ديكتاتر وكشقي ضدك بني آدم كأنا وحي أفكر عن هذه الجير صدح ذا قولي سيقولي رين الهايين مركا إن شاء الله تعالى ما أنت وحن جعلها laba kelmadood oo ay yiraahdeen labadan nini inaan soo qaadano inta aanan quraanka aanan isdul dhigin. ninka Faransiiska ee Poisier wuxuu yiri marka aad rabtaan inaad dictatoriyad nidaamkiisa aad ridaan waxa loo baahan yahay inaad sameysaan saddex arrimood oo ah necessary laga maarmaan ah. saddex shay waxa weeyaan waa inaa go'itaan u jiro dad wax goostay, dhalinyaro, aqoonyahan, odayaal, haween, culumo, dad maankooga isticmaalaya inta isku tagaan waa inay mar qaraar ay qaataan decision al-azm, waa inay caziima jirto ninkaasi. hadduu go'itaan jirin ninkaa waxba lagalama hortay karaya dictatorka amba fircawn. arrinta labaad waxa weeye in aad u noqon ninka dictatorka ah wuxuu ku shaqaysto si direct ah amba si aan direct ah, si toos ah amba si aan toos ahayn, mubaashir aw ghayr mubaashir, in uunan kugu shaqaysan. waxaa jira dadku waa labo. dad baa jira qofka fircawn amba dictatorka askar baa u shaqeeya, iyo dad baa jira iyaga oo war isku hayn u shaqeeya oo hawl uu isagu u dirsan bay qabtaan. dadkaasi saddex nooc u kala baxaan inaan sheegaan jeclahay. nooc waxa weeyaan iyagu waxay rabaan in ay madax noqdaan si degdeg ah oo dictatorkii oo wax walba iska haysta iyo rabaan inay soo sharaxaan madaxweyne noqon ana dhuka dadku samaysan. waxaas wax weeyaan jawigii madaxweyne lagu noqonayay ee wadanka lagu bedeli karayay wali ma jiro. marka dictatorku kuwaasi uu adeegsan karaa, wuxuu adeegsan karaa dictatorku si kale, wuxuu adeegsan karaa jawiga markuu isticmaalayo dadka غير مباشر si aan direct iyagu war isku hayn oo isticmaali kara. waxaa kamid ah dadka dad meel wada jooga inay jajabiyaan jecel oo isku diraan oo maartay qabiil dhexdhigaan, reer dhexdhigaan. ninkii suldaanka ahaa ee dictatorka ahaa iyo u shaqeynayaan si aan direct ah. qolada saddexaad waxa weeyaan si aan direct ugu shaqeysa dictatorka waxa weeyaan waa qolada iyaga oo war isku hayn shaqeynaya ah in ay abuuraan fikrad la dhado takhwiif الناس dadka inay ka cabsiyaan
maru ma haysid meesha xoog baa yaala cilmi baa yaala lacag baa taala wax la sameyn kara maaha kaasina dictatorka wuxuu ugu shaqeynayaa si aan direct ah marka arinta labaad wuxuu yiri waa in la helo decision laba wuxuu yiri waa inuu ku adeegsan ninka dictatorkii arin saddexaad waxa uu yiri ku dadaal waa poesiye ku dadaal in aad noqon nin u gargaara dictatorka ha u gargaarin hawsha uu ku dirto hawl ka duwan uu qabo hatta hada u shaqaysidna haduu kala irbadan halka gali meel kale u dhig haddaad arintaas samaysid waxaad ka qayb gashay inaad dumisid buuli saddexdaa shay iyo poesiye uu noo soo bandhigay saddexdaa shay hadalkiisii baan akhrinaya isagoo af carabi baan ku soo akhriyay faransiis buu ku laakiin waa la turjumo waa traductionkiisa carabiga ah inagana af Soomaali baan ugu bedelayaa wuxuu yiri isagoo dadka la hadlaya poesiye iqidu al-azma ku itaan xidda inaad wax go'aysan xadhig samee adag oo xidho maxaad xidhanaysiin an la takhdumu as-sultan ninka dictatorka sultaanka inaad u shaqeyn tusbixuna ahraarna markaad xor noqonaysaan marka aad isaga u shaqeyn weydid oo ku shaqeysiisan waayo hawl ku diran kari waayo oo ku adeegsan kari waayo xor baa tahay xorriyadu markaas qofka gudihiisa lagu sameeyay dibadda lagu soo qaado idan qaraarkii waxaad qaadatay inaad xor noqotid لا أسألكم مصادقته بولي نما ويدينا هل ساحبين نمليه دكتاتيرك هل ساحبين نمليه بولي بل فقط الامتناع عن مساندته واحد اسك إلى لسائرون إن الأجر جارتان هذا أرنت على ما حد عيا هذا الكيس أوفر سنك بواسية وحولي مركا هذا أرنت على سد عضو وحول نقن فترون واحد أركيسين كتمثال مائل إسقوا النقد سيد الصنم قلوع سمي جنجر سمي صحبت قاعدته أو وحي كتاغنا لغا هوس قادي فهو في الأرض دولك كدعي سي خوغ له غودي سنه dadka dhanba maqlay xinka ka baxaya marka wuxuu yiri poesiye inta sameeyay Abdurrahman al-Kawakibi odayga la oran jiray ee kitaabka qoray istibdaadka ka qoray masaariicdiisa mashaakilka istibdaadku leeyahay iyo dhibaatada uu leeyahay ninkaasina muxuu yiri ninka dictatorkii saddex shay baa u abuur raashin uu cuno raashinka koobaad ee cuno fircawn waxa weeyaan ee bini aadanka oo dhan uu ku wareeriyo waxa weeyaan in uu dadka qaybiyo si uu dadka u qaybiyo wuxuu sameeyaa buuri kuwa uu ku shaqeysto oo dadka qaybiya dadkaas maxay sidaan buuri lacag bay sidaan iyo waxay sidaan buuri ballan qaado dadka ay ku soo qaybiyaan kooxdaas ayaa u abuur raashin haduu kooxda waayo ma noolaan karayo buuri laba Abdurrahman al-Kawakibi wuxuu yiri الجبن بوري فلانimada dadku markay fulan noqdaan absidu ay ka badato oo ay aaminaan meeshii ilaahay oo kale inay dhigaan qofka fircawn oo kale taa iyaduna isaga raashin bay u tahay buuri ka cabsanaya markaas isbedel ma sameyn karayaan buuri arinta saddexaad ee raashika waxa weeyaan buuri ninka dictatorka ah ee uu isticmaalo had iyo jeer uu sameeyo waxa weeyaan buuri in uu dadka uu isleeyahay waxbay sameyn karaan in uu dadka safeeyo tasfiya ku sameeyo laba shay ku safeeyaa bul macnawiyan muuqaalma uu safeeyaa wadanku ka eriya soo doono wadanka uu diiday inuu soo noqdaan inuu ka raaxaysto umada amba jasadiyan jirahan oo sameeyaa uu dilaa saddexda shay iyo raashin oo abuuri saddexda haduu waayo inuu sameyn kari waayo ma jiri karo marka walaalayaal aayadihii quraanka aan ku jirnay iyaanu imanana oo la sii soconayna suu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka hadlaynaa marka ay uu soo laba kacleeyo ninka fircawn dictatorku uu arko in dadkii kaceen oo hadana uu sameeyo istaraatiijiyadiisii aan sheegnay maxaa la sameeyaa culimadu waxay dhaahdaan dadkeenu ay aad u dareebeen waxay dhaahdaan al-kalaamu xiina samti jihad ummadu markay aamusan tahay oo aynan hadli karin qofka hadlaay waa mujaahid weeyaan الكلام حين الخوف جهاد إن لحظله مركي دادكو عبسونيان وجهاد نبي محمد عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة شهداء أوردن وحا أمضحا وبقروة وجندكو حكومة يا حمزة
ورجل ينن نكاسو قام كعي عند سلطان جائر من بقرة أو جائر جائر كوا ديكتاتير ظالم حقي أمضى هايستا فأمره هنت أشياء أمري ونهاه حمانتنا كالريابي أو يروح عندك كده فقتله مركز دلي كاسنا وشهيد سيد الشهداء إذا واحد نقدر وجه هذا واحد هذا البو بس أطلع واحد كلام سبين هم مقادن رصاص مقادن حوق ما استعمال دوابدو انقلاب مسمين وهالله وروح عندك كده وكلام هذا البو كون نقضي الشهيد لأنه هو مجاهد لأن قفك المجاهد يكون بشهيد نقضي ولذلك يعرض الهدين الكلام حين الصمت markay ummaddu aamusan tahay ee shib la galo ee la hadli karin qofka hadlay waa mujaahid weey arinta maxaa ku tusaysa ilaahay wuxuu ka yiri fircawn markuu u diray Muuse iyo Haaruun idhaba ila fircawn innahu taqa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa utaga fircawn marka u tagtaan uu qooqay innahu taqa فقولا له لهلا مور إلهي الدلاء إلهي مور الرباحة إلهي مور دورد كقاطع مور لهلا فقولا له قولا هذا كلها هذا الكاس وليب الليينا جلعسا وعلميسا كلها ورنت أشياء مركز أشياء محادعي وحلقا يابا دو عقل إليه لعله يتذكر أو يخشى إنه إلهي كبقانا وصورة قل إنه صلى مو وحصوصتنا وصورة قل مركز استخدام الكلمة كلمة الله استعماله والله استعماله إن ودنك اللي قبت باديو وحويا وبداية محايلة كلمة وحوبات مركا إلا استعماله صدح شيء كلمة كو إن دقته كلمة علمية أو منطقة أو لوجيك لبا كلمة قفك آديس هايسان ديكتاتر كفرعون قاوينيسا أو بنت ودتك أشياء دنك دقيسا أركي دونه صدح كلمته وإنه كانتو بديل ورنكن هدو دلك كتغو ومد الدايو ومدو هالكم بلابسا وناقم بها ايه ليسا وإنه واحد سيكون جرى كلمة دا لعله يتذكر أو يخشع مركا فرعون كلمة دا عين كاسا بغلو ما أتكي سكرو وهذا الجريح سوحا الولا الله ورادو إلهي متهد ربنا متهد دادك مليهد دولك مليهد دقك مليهد دينت مليهد وحمليهد دادك الله متهد ماك لقى إلا يسقى لهدوك أنا له أنحار تجري من تحتي وحول بأني قاعد سمي يسقى لي مس مين بالقرن يا حبيب بس حبتي ضدك الله متهاي بس ضدك واضح ولست هاي إلى أمانة الوجودي ولذلك أبو أحد من الرجال مسلم الخولاني وها تابعينتي يا أصوغ لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه معاوية ودمشق جوجو صوغ له وحكي السلام عليك أيها الأجير نبتقلي كركا هاتا كني أن شاقيقا نوءه مدحنا هذه الجروح حقنا فردية منافقين من منافق فردية بماذا تقول لأمير المؤمنين والأمير كي مؤمنين تمامله مؤمنين تمحات كل هذا ما أجير بعد كل هذا معاوية مه ساه ورجوسوري مسلم الخولاني واني فقيه أو عالمة وحو أورانا وقرانا يا صحيح ويا محايا لي نيكا مدحة ومدى كردقتين مدح أصلك وأمدى ummaddu haday ku tiraado shaqadii way ka dhamaatay waa soconaysaa maxay yiraahdaan fuqahada islaamku waxay yiraahdaan marka ay taxqiijinayaan maamulka islaamka al-imaama maamulka islaamka waxay yiraahdaan waa bi wakaalad bay yiraahdaan sida wakaalaka waa wakiil oo kale wakaaladu maxay ka kooban tahay nin wax wakiisha iyo nin wax la wakiisho ummadiiba u wakiilatay ninka boqorka ah madaxweynaha ah waxa u wakiisheen inuu noqdo maamule ummaddu markaa maxay xaq u leedahay inay kala soo noqoto waxay xaq u leedahay inay ku erido waxay xaq u leedahay inay fasaxdo ay tiraahdo wixii u dhamaaday aan isla lahayn waxay xaq u leedahay inay tiraahdo 5 sano bas 10 sano laba goorun bas ummadda waxa iska leeyahay maadaama ay wakaalo tahay ajiir ba ila tashaqala tahay saas buu meeray muslim al-khawali rahimahullah u yidhi darqu fircawn maqla hadalka caynkaas sidaa de muaawiya ma noqonayo umaadkaysanay oo qooqaya محور النبي موسى عليه السلام مركو إلهي أدري إننا نخاف بوري إله ما كعب صورنا موسى ده ما هاد كعب صورنا سين أن يفرض علينا إنه نوقعه إنه نقرعه أو أن يتقى أما إنه حد قدبا كعب صورنا
دقياني إفراد بان كعبصرنا وحو دورينو سميان كعبصرنا لأنه وصاحب البطش ونكي أتقان إلهيو ما نكي وانهرتقنا أو أنوحاسو aan ku orana marka muxuu sameeyaa marka uu arko hadalkii fiicna fircawn wuxuu la soo baxaa batsh absiin wuxuu la soo baxaa duqyaan xadgudub dadka qaar bay taa ka cabsiisaa dad baa cabsoo waayay dadka wax kale u hayaa fircawn wuxuu hayaa istikhraaj kunuuz ad-dawla kaydkii dawladda u yaalay ayuu soo saaraa ziinata ad-dawla quruxdii lacagtii dahabkii dawladda ayuu soo saaraa muxuu ku falaa marka raadaanka dawladda uu qaybiyaatay محول فرعون مر موسى كهذي وحول وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا إلهو فرعون إيو ملئيس وقال الله شقيسا وقعد الله جوكتا وحاد سيسي لعق بدن يقرح دادكو نوا عندك قرد قرح داون بأغيان بابوري واوين ديار دو واوين ديار دو واوين مركي أركان برنيان والودرقي وحانو دان محو إلى بركة كيلو قرآن كله ليضلوا عن سبيلك إن يدتك اللوميان دتك حقي كلوميان ما حق كلوميان حولان بيصيريا وقيبينيا marka uu hadalku bilaabo hadalka wanaagsan haduu bilaabo ayag waa hadal wax kale lama sameyn waa kalaamku uu dhibaya idaacad television journal waxba hadalka kama soo bixi karayo maxay laana waa dhaif imika mesela qofku marka uu joogo wadamada reer galbeedka haduu Mareykan joogo haduu Canada joogo haduu France joogo haduu Ingiriis joogo wax weeyaan ninka madaxa ah inta idaacadoodi ka soo horjeeda ka badan inta idaacado isagu u leeyahay muxuu ga cabsoon lahayaa uu kalsoon yahay confiance ba jira si qoys ku haya baritoole dawladan haduu wadi kari waayo iscasili ama iska tagay wadanka Canada waxa jira nin wasiirka arrimaha dibadda ahaa imsa sanadood intii ka horeysana shaqaale weyn ahaa isagoo la jecel yahay buu iska tagay waliba isagoo dhowr iyo 40 jir kontonki wali aan gaadhin yuu iska tagay laana 60 jir buu ku noqday shaqaale weyn oo dawladda markuu iskaga tagay wuxuu yiri waxaan rabaa intii aanu adeegay dawladda waanu adeegay inaan naftayda aanu adeego iskuma keeni karaya adeega naftayda iyo adeega dawladda laana wax aqliga gali kara maaha inaad lacageysatid aad dawladda u shaqeynaya madaxa binaadamka ma soo gali karaysa walidalika bay culimadu soo qaataan qisadii Abi Bakr radiyallahu anhu Abi Bakr markii madax laga dhigay ummadda islaamku ay dooratay subaxii uu dhaqaaqay hagu tagay wuxuu tagay dukaankiisii wuxuu ha dharle dharkii buu qaatay inuu dharkii biyo doonaya waxa ku yimid Umar ibn Khattab iyo Abu Ubayda Amir al-Jarrah radiyallahu anhuma waxa kale ya Amir ya Khalifata Rasuulillah ninkii madaxa noqday ee rasuulkii Ilaahay kadib aan dooranay ila ayna ka socotaa wuxuu ila suuqan ku socdaa waxa kale oo bima tafعل في السوق كتابك الاموال بك قرته ابي عبارتي ابي عبيده كتابك الاموال يا لو قري wuxuu markaa ka yiri Umar ya Abi Ubayda oo suuqa maxad ka sameeyay wuxuu yiri ciyaalkii oo soo shaqaysanay ومن أين لهم حقيقة نولان كريان محو كير مركا عمر يا أبي عبيدة علمي والكو قادي صحابة وما أنت وحل قادي ويان وحي كير هذين وقد وليت أمر الأمة ما أدقوا مدح النقضي يا السوق تجي أو يبني أو تكان يالا أو معذار يالا أو دقل دسن ما دعي كريسة كير هذين إسكو ما إيمان كريسة مدح ما نقن يحولا يالا وقد وليت أمر الأمة وفجعي أمر وسيء بتكون حلوها لقو قولي دونا حولو xoolo aad ku noolaatay adiga iyo ubadkaaga ayaa la qoray saxaabadii waxa fadhiisatay majlis shura madaxdii muslimiinta shirka waxa gudoominaya Ali ibn Abi Talib Ali ba markaa gudoomiye ka radiyallahu anhu markaa ra'yiga baa la dhiibtay Ali ba soo gaadhay ra'yiga Ali markaa isaga gooyay waxa uu amiirku inuu qaato ay tahay ayaan walba wuxuu cunayo waxa kamid ah waxyaalada uu gooyay wax badan buu gooyay waxa kamid ah lah number 1 bedki nuski waa ina maalin walba amiirka loo keeno وأنو هلو وأن عجيب وحلو قدر هلي بكوني ولو قدري ما أنت وحكو جرت دقن كمدحضة قالة أنا كو قالة أونلاين رجال بيتك وحكو جرا قفك بني آدم أنت اللي أقول يه إنه دولة كعنو كو عبيو باشو عبيو وحعنيو هوتيلك وساحنيو ديار دور راعيو ومقدر وحضوني هذا من رئيس الوزراء إلا وزيرك إلا كوه سير صاب وقدر صحابته markay qadareen ayuu suuqi ka soo fadhiistay culimadu markaa waxay yiraahdeen shaqada ugu weyn ee la qabtay waxay ahayd waxa la badbaadiyay magacii madaxda muslimiinta laba waxa la badbaadiyay suuqi muslimiinta
عقل maaha ninka madaxa haduu tukaan furto shicibka agtiisa ka furto dadka oo madaxa wax ka iibsanayaan imtisaas Soomaaliya lacagta oo mujiidanaya sida Afrika ka dhacday weeyaan amba Asia ka dhacday amba caalamka saxad ka dhacday waxa weeyaan nin madaxa la oranaya intaasoo milyaar buu haystaa waa uu shaqatay Umar ibn Khattab muxuu bilaabay qisad la yiraahdo min ayna laka hada waxana geedka keentay wuxuu ku bilaabay saxaabadii oo Abi Hurayra kamid ahaa dhowr kun oo faras buu lahaa Abi Hurayra isagoo saxaabiyad jihaad buu galay farduus soo helay jihaad kale uu galay farduus soo helay wixii oo dhan uu ka bayc mushtari uu bilaabay wuxuu ka yiri shaqa ku dhiibay magaalo wadan waxa ku keenay wadankii waa loo dhiibay wadankii markii loo dhiibay gobol oo governor ka noqday madax ka noqday wuxuu aga dhigtay intaas oo kun oo faras baa la ogaaday Umar uu yeeray wuxuu war farasaan hageeda keentay uu sheegay halka waan keenay wuxuu shubha jirta khalad baa jirta adoo madaxa lacag ma yeelay karto ka wada qaaday xoolo min ayna laka hada halal beenahayd laakiin iyadoo halal ka qaaday xaraan ma ahaynba halal uu iska leeyahay buu ka qaaday laana wuxuu yiri dadka muslimiinta madaxooga waxa ku dhici ninkani xoolihii muslimiintu xaday xoolihii ummadu xaday marka taasi waa arinta labaad wuxuu isticmaali xoolihii dawladda suuqa kala jabiyo saddex wuxuu isticmaali sijri dadka inuu xiro qatli dadka inuu laayo quraanka qoran tahay فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وعجيبوا يعني إلهي وحول سبحانه وتعالى مركوا حق يمادوا وحي سما فرعون هو سمايا وحول الله يا دتك اللي دي رضع إيمانك ماملك وضع وبتكوغا إياك وضعفا عجيبوا يعني وحصوا إيمي كان أرنا واحد أركي سانين مدحة وسانتي سي شغل غيريو بس سانتي معارضة أفريقيا كجيتا حاسي عيالكيسا جامعة وديد سكولة وديد قاجو كدل محو إلهي ليه اقتلوا أبناء الذين آمنوا اقتلوا الذين آمنوا معها كوي مؤمنين تديل معها أبناء أبدكو قديلها سيلو قد هرعضو هاسكو راعين سيلو هرعضو والو قديلي سيلو هرعضو عقلي قدا ولوجيكا dadka qaar waxaad ku arkaysaa matalan iyagoo iska mucaarada Afrikaanka xataa reer Djibouti ka soo qaad oo abkarada jooga ama Mareykanka jooga mucaarad baan waan ku horjeedaa laakiin haddaan hadlo walaashay baa shaqada laga yeeray Djibouti joogto kulan amba waxa laga yeeray islaan idadaya amba wuxuu qoran aqal maartay islaan abtiga uu leeyahay oo maartay khayr ka qaato oo finaaska jirta yaa loo diiday ratareedka la iga goyn ee hagal gaarayo anigu mucaarad baan waan dawladda waan nacaab kulay waa dictator waa dhalimin laakiin sheekhow anigu waxaan u baanahay xuna laga yarqad lacagta hoosteeya maxaa yeelay haddaan ka soo taago dad baa dhimanaya abnaa alladina واسكبدوا قصته وسووا نقرأ القرآن هو عجيب كتاب إلهي آخرية واحد قال كده حتى بوغانتن رجال بيت يقول لنا أبناء الذين آمنوا معه مسرعي كو مسرعي ليدر ما الرعي إلهي آمنين موسى آمنين هي ذلنا أبدكوا الله يعني وقرأنا ساعة وعجيب يعني سؤال بس ويدينا ساعة قرارك أنت هلا يا قاطع ديسيشك أنت هلا يا قاطع قرآنك قرأتها ديسيشك مركب وقادنا يا فرعون rag baa u soo kariya munaafiqiina oo aqalada soo fadhiisada sidan ma la yeelo sidan kale ma la yeelo sidan kale ma la yeelo sidan ma orano sidan ma dhahno sidan kale warag waa hamaanadii iyo qaaruunadii iyo kuwii kale la midka ahaa ayaa soo sabay ilaahay muxuu subhanahu wa ta'ala walaqad arsalna muusa biaayatina wa sultaanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaaruna faqalu sahirun kadab qaraka daawo إلهي وحوري وحان أدرنا موسى وحان أدرنا فرعون إيا هامان إيا قارون صدح وحان أدرنا موسى محاك أدرنا آيات عاد أرقما يوطي موسى أرقما كلمة دقيسانيو فكر كلمة دقيسانيو سلطان نووطي مرق عاد أو إنه نبي هالشاقيا نكو اسبدل كيانيا وإنه مرقيا كيانو وروحان لسمانيا صح ما مرقيا دا لما دقيسانيو محل دقيسانيا محل فقالوا ساحر سيا حيا قفكي وصاحر كذاب بالله فرعون بين لبورنا فقال فرعون معها فقالوا وجمع وبلوريال فرانسيسكا ودمانتو waxay dhaadeen saaxirun kadab quraanku waa cajiib maanta ninka dictatorkii markuu doonay inuu isticmaalo wax haamaan ba shaqeyn haamaan wuxuu ka soo shaqeynayaa in uu maartay wax dhan ee wasaaradda ila haamaan wasiirkii wasaaradda dhan uu hayo iyo ka dhigay system ورالي كيهي فرعون وكساري وحورالي كهي نودن markaas waa ninka ba shaqeynaya adu wasiirka ma shaqeysado maxaa yeelay sida ninka uu shaqeeyo marka waa la isku wada ekaanaya haamaanadu isku wada ekaanayaan
qaaruunaduna way isku wada kaaleen si qura loo lacagaystaa marka uu la shaqeynaya fircawn see loo lacagaystaa xoolaha dalka uma lagu lacagaystaa 10 qof 15 qof baa la sameeyaa oo xoog u dheregta malaayinta qofna way gaajootaa marka la qofkii raba inuu fircawn ku dhawaado kuwana ku soo biro soo u dhergi karo faqaalu saahiru kada marka takood ma xaran waa hadal wanaagsan talabaad maxaa loo baahan walaalaha hadalkii wanaagsanaa marka oo meel gaar maxaa loo baahan waxa loo baahan yahay hadalka wanaagsani keligii ma anfacayo waxa loo baahan talaabadii la qaado labaad talaabada la qaado maxay waa at-takhtiit ina la sameeyo la jaangooyo sidoo isbedel u dhici lahaa tandiim la is organiseeyo waxda midna la ahada saddex xashooyin isku jiraan suurtagal maaha inaad ka hortagtid nidaam dhan oo fircawn samaystay oo ka hortagtid nidaamkiisa qaar baa maanta koranaya dictatoriyad dadka qabiil ba u qaybisama annakuna qabiiladeena ku noqono qabiil ka hor imano la taas waa xarfadiisa taas qabiil nidaamka laga hor yimaado taas isaga sameeyba shiican oo ku qaybiye adu maxaad ka hortaysaa waxdatan mid bad noqonaysaa adigu waxaad noqonaysaa matalan qofka duu Djibouti reer Djibouti waa Soomaali reer Soomaaliya ah ma ahan waxaan ahay reer hebel reer qurac reer dhagax reer bir taa ka hela anoo reer bir aan ka hor iman ka tiraad reer dhagax buu ka hor keenay hadda tiraan reer qurac aan ka hor iman reer badun buu ka hor keenay ka baxashid qolna qolka ma xoogayno laakiin adiga oo ah qof wax isbedel doona reerna ka hor jeedin bas system ka hor jeeda takhtiit baa ka baatay organization iyo planification iyo midnimo unity saddexdaa shay yaa laga hortagaa walidaalka ilaahay muxuu yiri wala tanaazacu dadka isbedelka doonaya iimaan kalow ha isdiidina iskhilaafina hadaa iskhilaafin maxaa dhacaya fatafshalu wa fashil bisinde isdiidku wuxuu keenaa fashal haduu yimaadana maxaa dhaca wa tadhaba riihukum quwdiina iyo xoogiina oo baabi marka isdiidku fashalaad baa ku xigta fashalaada maxaa ku xiga bilaa itaal si aynan bilaa itaal iyo fashalaad iban waa inaan midahaatiin marka waxa laga hortago wax weeyaan ninka dictatorka waa midnimo mid waa in la ahaado walidaalika Haarun alayhi salaam markii uu arkay tolkii oo sanam caabudaya taabu ilaaliye midnimadii Muuse kaga tagay hadduu oran lahaa war sanamka ka taga in baa raacileed in gaali noqon lahayd nabi Muuse uu soo noqon lahaa iyo koo laba uu sii xajiyo markuu soo noqday Muuse ka yiri war siyad ugu daawatay inay sanam caabudaan wuxuu inni khashiitu an taqula farraqta bayna bani Israa'iil waxaan ka cabsaday inaad igu tiraahdo reer bani Israa'iil baad kala kaxaysay ma isku sii xajiyay imika u sheeg xaqi hada hada ay taal badan oo umadu ay ku dhageysanaysaa marka talabaadina waa taawir aanada saddexaad ugu dambaysa wax weyn ikhwaani fillah oo looga baahan yahay marka laga hortagayo quraankuna uu sheegay wax weeyaan in ay dadka isbedelka sameynaya hadafkoodu cadaado objective-ka waa inuu ku cadaado maxaa rabtaa haddaad rabtid kursi objective ma sameynaysid waa markii sagaalaad ay nagu celinayo haddaad rabtid inaad isaga bedeshid isbedel ma sameynaysid kursiga doonaysaa faqad annaka faa'iido noomale nin kursi doonaya oo bedelaya nin kursi ku fadhiyay nidaamkuna wali dictatorkii uu yahay kii dictatorka uu yahay oo berito leesna uu noqon doona dictator ciidankuna isaga ay ka qaadan doonaan ku xiri doona ku dili doona sameyn doona tujaartiisii munaafiqiintiisii la waxa la rabaa inuu nidaamku zuulo oo nidaamka fiican uu yimaado marka kuwaasi waayo kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamay alladina la yuriduna uluwan fil ardi kuwa aan doonin in dhulka ku sareeyaan kuwa aan hadaf balahayn hadafkoodu uu yahay faqad inay helaan wadan xora inay helaan dad xora inay helaan jawi xora in aan subaxa markaan soo kaco aan arko nolosheedii sax waad mahadsantihiin barnaamijkii aan wadnay suuratul qasas halka bay noogu dhamaatay inta aan bilaabi doono suurad kale iyo aayado kale waxaan iga tagayaa sida ay nabadgeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.